Jaamacada Simad ee magaalada Muqdisho oo sanadkii mar qabata bandhig dhaqameed loogu magac daray toddobaadka dhaqanka kaas oo lagu muujinayo muhiimadda ay bulshada u leedahay in ay dhowraan dhaqankeeda waxaana ciwaan looga dhigay hadhuuminin dhaqankaaga hooyo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Usmaan injineeriisu ayaa Kumanaan ka mid ah ardayda iyo maamulka jaamacada Simad kala qayb galay bandhig dhaqameed iyadoo uu duqa magaalada Muqdisho ku labisnaa dhar ka turjumaya hidaha iyo dhaqankeena suuban waxaana uu ku ammaanay dhalinyarada sida quruxda badan oo ay u muujiyeen dhaqankeena hooyo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kormeeray qeybaha kala duwan oo ay jaamacada ka kooban tahay isagoo u korgelayay sida ay jaamacada ugu diyaarsan tahay in ay soo saarto arday tayo leh oo mustaqbalka anfaca dalka iyo dadka Soomaaliyeed. ugu dambeyn duqa magaalada Muqdisho ayaa howlka jaamacada Simad uga qayb galay munaasabad ay goobjoog ka ahaayeen Kumanaan dhalinyara ah kaas oo qayb ka ahaa bandhig dhaqameedka iyadoo ahmiyadda bandhigani ka warbixiyay kusimaha gudoomiyaha jaamacada Simad injineer Maxamuud Cali Sow. xafladan quruxda badan ee muddada soo socotay arday ayaa waxay ku soo bandhigtay mudane gudoomiye aqoonteeda Qur'aan oo ku kala guuleystay qaara waxay ku tartameen gabay oo ku kala guuleystay qaara waxay ku tartameen ciyaaraha kala duwan ee dhaqanka la xiriira oo ku kala guuleystay gabdhaha baraambur ku tartamay oo ku kala guuleystay intaas waxaan u sameeynaynaa inuu san luminin dhaqanka iyo hidaha anagu aan leenahay. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Usmaan injineeriisu waxa uu ku ammaanay maamulka jaamacada Simad doorka muhiimka ah ay ka qaateen soo saarista arday tayo leh oo dalka anfacda. runtii jaamacada Simad waxay ka mid tahay jaamacadaha tilmaaman jaamacadaha nuuriyay dalka jaamacadaha u istaagay in ardayda Soomaaliyeed ay helaan waxbarasho tayo leh iyagana aad iyo aad uga mahadcelinaynaa Simad la'aanteedna maanta horumarkan dalka ka jira ma suura gasheen. waxaan xasuustaa anigoo ah wasiirka lacagta 2009 10 sano ka hor waxaan idhi bal maxaan ku kordhin karnaa dalkii sideen u dhiirigelin karnaa ardayda jaamacadaha ka soo baxa markaasna aan rabay in wasaaraddii lacagta la tayeeyo isla markaana arday business administration iyo maamulka iyo financiga iyo accountantiga ayaan aad u daneynayay in muxuu ahaa aan soo saarno. waxaa ilaaha mahadiisa waagaas inaan ku guuleystay in 15 ardayda Simad ah aan u qaatay wasaaraddii lacagta waagaas maantana ay dhammaantoodba shaqaalaha dawladdana ka tirsan yihiin weliba qaarkood horumar ballaaran ka sameeyay meelo fiicanna ka jooga. runtii dhaqanku waa maguurto waa muhiim bulsho walbo meel kastay joogto waxay bulshada kale uga duwan tahay waa dhaqankeeda iyo hidaheeda taasna waxay u baahan tahay qof kastoo annaga naga mid ah inuu ku dhiiriyo bulshada inteeda kale si loo dardargeliyo isla markaana oo loo kordhiyo dhaqanka iyo hidaha. marka runtii isbuucan waa isbuuc aad u shideen caasimadda اسبوع aad wax u qabateen. Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada